السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان صاحب الصوماليات ملك سؤال جوكتان يسكر سؤال ضوء وريسان جمعة المبارك وياي موضوع ما أنت ويرد ليهي وحوله كسب سنيهي لابد يشر الدوان كسو كلا جب جوي مقالة مقدسو يو مقالة الكروي سلوا كلا واحد ركوب اللعب دونا من الحين محمد عبد الله فرماجو وإسقنا والصحافات صاري حي الصحافات كاس waan idin dul mari doonaa waxaana kadib gudaha u gali doonaa aragtiyaha kala duwan ee la qabo talaabada xashir maxamuud qaaday waxa ay uga dhigan tahay nimanka MSS ama madasha samata bixinta Soomaaliya way dheertahay marka waan soo gaabinay hadda kadib waan asaas ugu yeertaan MSS muxuu ahaaytay kulankii uu la qaatay xashir maxamuud iyagu dan u tahay qolada maxuu ahaaytay iyaguna garowga ku shiray warqadii ay soo saareenna taaliiqa ka bixin doona ala kulli xaal humaa guud ayaa idin tusi doona hadaad muuqaaladina ka yar ku dhaafaan ama aad seegto adigoo hurda ayaa dagaalka xiddo bilaaban doona marka waxaan leeyahay nagu xidhno oo nala soco waliba adkaysi aad ku daawato muuqaalkan yeelo wax badan baa laga daba doona waayahay madaxweyne maxamed abdullaah farmaajo ayaa xalay warsaxaafada soo saaray kadib markii ay soo gabagaboobeen kulamadii qaarna ka socday garoowe qaarna muqdisho kan madaxweynaha ku bilaabaynaa madaxweyne maxamed abdullaah farmaajo iyo xasan laftirkooda ayaan iyagana isbarbardhig ku samayn doonaa talaabada hadda xasan qaaday iyo tii berigii maxamed cabdilaahi joogay u qaaday wax badan baan maanta isbarbardhigi doonaa marka muuqaalka dulqaad aad ku daawato marka la yeelo xoogaa u dheeran doona waayaa madaxweynaha ku bilaabaya wuxuu yiri madaxweynaha maxamed abdullaah farmaajo warsaxaafada ka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib kulan dhex maray buu yiri qaar ka mid ah madaxda mucaaradka Soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu noqon karaa yiri bilow wanaagsan oo loo qaaday dhanka xal u helidda khilaafaadka siyaasadeed ee ka taagan arrimaha masiiriga ah ee taabanaya buu yiri dastuurka dalka siyaasad loo dhan yahay iyo hanaanka doorashada dalka waxaana soo dhaweynaynaa wuri in madaxweyne xasan sheekh maxamuud aqbalay in dhexda la dhigo arrimaha masiiriga ah ee la isku diidana madaxweyne maxamed abdullaah farmaajo hadalkiisii wato wuxuu yiri waxaan sidoo kale mar kale hoosta ka xariiqaynaa buu yiri kuna baaqaynaa in dastuurkii ku meel gaarka ahaa ee ummadda Soomaaliyeed ku heshiisay sanadkii 2012 uu yahay tiirka isku haya dalka sidaa darteedna wada hadal kasta oo dhacaya waxaa lagama maarmaan ah buu yiri in dastuurku uu saldhig u noqdo xal u helidda arrimaha masiiriga ah sidoo kale madaxweyne maxamed abdullaah farmaajo si hadlo wuxuu yiri waxaan sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud u soo jeedinayaa inuu qaato kaalinta dastuuriga ah ee isku haynta iyo midnimada dalka sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah buu yiri in madaxweynuhu qaato mas'uuliyadda ka soo qaybgalka shirka ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland uuna si toos ah ugu marti qaado shirka loo ballamay 3 bisha Luulyo oo muhiim u ah buu yiri in dalku yeesho jiho siyaasadeed oo loo dhan yahay madaxweyne maxamed abdullaah farmaajo boqolkiiba boqol aad iyo aad ayaad mahadsantahay waayahay barnaamijkeennii hadda ayaynu dhex galayna marka sidaa la socoteenba madaxweyne xasan sheekh maxamuud magaalada muqdisho ama fila Soomaaliya wuxuu ku qaabilay nimanka la yiraahdo MSS ama madasha samata bixinta Soomaaliya kulankaas waxa weeye aragtiyo kala duwan ayaa ka soo baxay horta marka hore humaaga guud iyo waxa kulankani uu muujiray waxa weeye marka laba u kala qaadayna yani dhinaca xasan ka arkay markuu kulankan qabanayay iyo waxa uga soo baxay nimanka loo yaqaano MSS nimanka la yiraahdo MSS waxa weeye niman madax hore ah oo dalka madax ka soo noqday laakiin hadda xil ay haayeen ma jiro xasaanad male cid gaar ah midkilaan ama deegaan ay midkilaan ma jiro sidaas daraadeed in madaxweyne xasan sheekh maxamuud la kulmo uguna yeero madasha samata bixinta Soomaaliya gool siyaasadeed bay iyaga u tahay dhanka kale madaxweynaha nusqaan bay ku tahay sababtoo ah samata bixinta dalka waxa uu xil saaran
madaxtooyada Soomaaliya iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa markaan dawladnimo afkeeda ku hadlay tusaale ahaan waxaan aragnay dadka qaar leh wuxuu xasan sheekh aqbalay wax farmaajo horay u diiday siyaasadda marka la yiraahdo iyo muxuu ahaaytay danta qarannimada tii farmaajo saxneed sababtoo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waagii uu yani madaxweynaha ahaa ayna ka soo horjeedeen tiimka hadda xasan qaabilay oo xasan ku jiro madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aragtida uu qabay waxay ahayd warraggan iga soo horjeeda waa rag Soomaaliyeed oo dalka soo hogaamiya laakiin maanta cid ay mas'uul ka yihiin ma jirto dalka aniga mas'uul ka aniga lay doortay marka taytalka aan ku qaabilayo muxuu yahay ma maamul goboleedyada xukumaan ma dawladeedii ku jiraan maxay yihiin marka horta taytalkooda haleesho halkaas uu jooga marka laga hadlayo marka nidaamka dawladnimada maxaa Cabdullaahi Farmaajo taas uu ku saxnaa xasan sheekh maxamuud waxa weeye angal kale ayuu bahasha ka arkay taas ayaana keentay in xataa wax isaga nusqaan ku ah uu aqbalo muxuu ahay angalkaas waa aniga aragtidayda garowe waxaa ka socda shir u dhaxeeya Jubbaland iyo Puntland shirkaas waxaa la qorsheynayay in uu dhalo shir kale oo ay ka qayb galayaan madasha sabata bixinta Soomaaliya ama MSS xasan wuxuu istusay aragti ah haddii nimankan muxuu ahaatay MSS la baxay oo hawiye u badan runtii ilmo adeeradiis ah ay dhammaantood garowe tagaan oo Saciid Cabdullaahi Dani Axmedow ku guuleystaan markay garowe geeyaan kirfadaha miisaanku ma sinaanayaan waxa weeye 75% elite Soomaaliyeed baa garowe isugu tagaya adiga inta kula joogtana waxaan noqonaysaan 25% marka miisaankaasi u kala dhantaalo ayuu nimankan u qaabilay ugana tanaasulay isagu tiisi sababtoo dalka isaga mas'uul ka ahaa madal samata bixinta ummadda Soomaaliyeed wadata xasan inuu qaabil asiga jug weyn u keen laakiin angalka uu ka arkaa waxay tahay xagga haddii nimankaasi tagaan dhibaatay kugu tahay waxaa taas laga dareemi karay sidoo kale war saxaafadeedka ka soo baxay madaxda Jubbaland iyo Puntland waxa way runtii cara xoogan baa ka muuqatay oo iyaga laftirkoodu way dhibsadeen in xasan sheekh maxamuud uu qaabilay madashii sabata bixinta Soomaaliya waxay rabeen in kulankoodu hordhac noqdo go'aamiyaan xilliga iyo waqtiga la isu imaanayo nimanka hawiyaha u badan ay u yeeraan garowe la fadhiisto beesha caalamka la invite gareeyo oo la yiraahdo tii Soomaali xoogeedii waa kan xasan sheekh iyo koox yar ku hareeraysan baa xamar joogta iyagoo baa naga maqano xasan markaa lagu khasbo inuu garowe tago aragtisaas ay wateen markay arkeen in xasan sheekh maxamuud bahasha uu la ciyaaray oo nimankii ay u yeeran lahaayeen miisaankooda ku cuslay lahaayeen uu isagu u yeeray iyagu aad bay uga xumaadeen warqadoodana waxaa ku jirtay cara xoogan iyo anagu kulli ku imaan mayno waa xogaa sii fogaadeen waxaan soo laabanaynaa marka xasan iyo labadan qolo faa'iido ay kala heleen waan idin sheegay xasan angalku ka arkay waxa weeye in culaysku ku badan oo xagga aan la wada aadin nimankaana aqoonsiga meeshii ka heleen oo iyagu ninkii sagaarad dhigtay awshu ugu dhacatay noqdeen maanta waa niman haddii alla ku roon yahay talada dalka wax ku leh xasan baa wax ka siiyey oo awoodiisa qaybay qayb ka mid ah siiyey dadka qaar ee wax shala uu diiday farmaajo xasan maanta aqbalay horta xasan iyo farmaajo يعني waxa lagu haysto maanta xasan ula jeeda iyo wixii shala farmaajo lagu haysto ma isku mid ba maya marka horeba labada qodob ee labada nin lagu kala haysto isku mid ma aha hadii aan si qof walba fahmi karto aan u dhigo waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyaddu waa hogaanka ummadda marka tahay ummadina waxaan ka dhigaynaa awr ama geel isku xiriirsan ka dhigaynaa ilaa moogta aqalkeena waa miyi waa geeli awrtaas 20 soddonka 40 ratiya hogaana isku xira wuxuu u horeeyaa hogaanka koobaad buu hayaa ratiga u horeeyo garkacaya ama gar qaadaya maxamed cabdullaahi farmaajo marka wuxuu la mid ahaa nin awrti hogaaminayay ee wadadii la garanayay ee reeraha tagiisay kala bayray ee la yiri war soo celi war duca qaba ku soo celi wadadii waad ka dhuntay ee ku dooday war maya watadan kaliya garanaysaa mid kale oo gaaban baa jirto halkan oo intaan saas u soo maro aan reeraha gadaal ka soo geli karo laakiin awrtiisi way u xiriirsantahay waa laga diiday waxa la war ma garanayna anagu wadada jiis war duurkan aad u socoto reerka hal habaabin war soo celi baa la yiri
maxaa bilaa farmaajo markii dambe waa kii aqbalay oo yiri okay halkan wadaa taqaana Soomaaliya horeeraha tagtaha weeya awrtii anigoo hogaaminaya ayaan ra'iisul wasaaraha markuu u dhiibay isagu waday tooska ay hamar taaru mari maayo taasa igala fiicnayde يعني دورشي اسكو وريجي حوري أرينا دورشي رزارة وريجي وري أورتي اسكو حريرسان أيونا وريجي لكن حسن بالعكس أورتي اسكو حريرسان لد محيو كسنين حسن حول المديا مركي سقولا لن أورتي اسكو حريرسان لود ديبي سيدو أوه وضدي أوه انتو هالمن استاجيو رتيجي أوه الرئيه أو هقانك وهاي جيت كو حري مدي سوقعتي أورتي كالي هقانا دو وضا جاري كو مدبا مدكو كو حريرسان اي كجاري optionka markaas taagan muxuu yahay optionka awrta helaysa waxa weeye khati walba maadaama uu cabaarsan yahay oo uu rarsido fursadna uu u helay inuu kaligii iska tago inuu wadada ka leexday geedaha iska daaqo duurka gala haamakiisa la habaabo fursadaas ay khati walba siinaysa marka waxa weeye awrti isku xiriirsaneedo xasan hogaanada u wada jaray markaas uu khati walba meeshu doonay reerkina ma geynayo mana wadayo warwarkooda ma rabo kii isagu uu waday ugu horeeyna geedu ku xiray inta kale hogaanada u jaray duurka galay hogaanada maxaa tusaalahan u soo qaatay waxa weeye dastuurka dalka ummadda yaa isku haya dastuurka isku haya waa hogaanadii isku xiriirinayay awrta hogaanadii u jarjaray dastuurka mar